telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiiyey 100 arday oo ka qalin jabiyey barnaamijka shaqadoon oo ay maalgeliso hay'adda EDC. barnaamijkan oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 100 arday oo loo tababaray barashada xirfado shaqo oo ay ku shaqaysan karaan. waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, xildhibaano maamulka Bulsho TV, saraakiil ka socotay hay'adda EDC iyo marti sharaf kala badan. waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay madaxa mashruucan ee Bulsho TV Maxamed Faarax Cabdi, waxaana uu sheegay in barnaamijkani uu wax weyn ka tarayo dhalinyaradu in ay helaan xirfado waxbarasho oo ay ku shaqaystaan. waxaa kale oo uu sarkaalkani sheegay inay ujeedada barnaamijkani yahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinyarada shaqada la ee buuxdhaafisay goobaha fadhi ku dirirka ah. waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay Master Xuseen Laki oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda EDC oo ah hay'adda barnaamijkan maalgelisay. waxaana uu sheegay inay barnaamijkani oo ka kooban xirfado badan oo shaqo looguna talagalay